السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka gurfaynta ciyaaraha ee Som Sports oo xilligan oo kala daawataan qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxa kamid ah Manchester City oo laga qaaday ganaaxii Champions League ee labada xilli ciyaareed horey loo saaray madaxweynaha Barcelona oo sheegay in kooxdiisu ay dib u dhigtay raadinta xidiga Lautaro Martinez kooxda Manchester City waxay raadinaysaa 5 ciyaaryahan oo cusub si ay ugu xoojiso safkeeda waxaan sidoo kale idin haynaa Real Madrid oo isku diyaarinaysa iibinta xidigeeda ku fashilmay kooxda Wolves ee Jesus Felecho daayirkii Barcelona Carlos Alenya amaahda uga maqnaana wuxuu isku diyaarinayaa inuu kooxdiisa dib ugu soo laabto Shaqiri xidiga Liverpool waxa uu ku biirayaa kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin falanqaynta tartanka loogu jiro soo bixitaanka Champions League ee kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League ayaanu idin haynaa u diyaar garooba barnaamijka oo dhameystiran markale kulan wacada wadayaal haatan barnaamijka gurfaynta ciyaaraha oo dhameystiran aynu ku bilowday kooxda Manchester City ayaa loo ogolaaday inay ciyaarto Champions League soo socda kadib markii maxkamadda xalinta khilaafaadka ciyaaraha ee magaceeda kaas loo soo gaabiyo ay aqbashay racfaan ay kooxdu ka qaadatay ganaax laba xilli ciyaareed oo tartamada Yurub ay horey uga saareen xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ganaaxii lacageeda isaguna horey u ahaa 30 milyan oo euro ayaa isna la soo yareeyay oo waxa haatan laga dhigay 10 milyan oo kaliya kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lagu eedeeyay inay jabisay sharciga dhaqaale wanaaga ee Yurub kadib markii la sheegay inay isticmaashay lacag maalgelin ah oo uga yimid shirkadda Abu Dhabi Group taasi oo uu leeyahay mulkiilaha kooxda Manchester City Sheikh Mansour kooxda kubadda cagta ee Barcelona madaxweynaheeduna waxa uu sheegay inay kooxdu sugi doonto sida suuqa kala iibsigu uu noqdo ka hor inta aysan samayn soo saxiixasho xidig weyn kaasi oo lagu sheegay Lautaro Martinez madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa intaas ku daray in kooxdiisu ay kooxda Inter Milan kada hadashay heshiiska ay kula soo wareegayso Lautaro Martinez laakiin waxa uu sheegay inaysan wali jirin wax heshiis oo dhadhow isagoo sheegay in haatan ay diiradda saarayaan xil ciyaareedka inta ka hartay Jose Maria Bartomeu ayaa yiri suuqa soo socda aad ayuu uga duwanaan doonaa sidoo hore naadiyaasha waaweyn ee qaaradda Yurub waxa xadidi doona dhibaatooyinka dhaqaalaha laakiin Barcelona had iyo goor waxay sameyn doontaa suuqgal weyn madaxweynaha Barcelona ayaa sidaas u sheegay TV3 xaaladda Lautaro Martinez wada hadallada kooxda Inter haatan waa la joojiyay ayuu madaxweynaha Barcelona waxaan kala hadalnay arintan Inter asbuuciyo ka hor haatanna waxaan ku jirnaa marxalad qiimeyn ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay isku diyaarinaysaa inay la soo wareegto 5 ciyaaryahan oo cusub si kooxdeeda ay ugu xoojiso xilli ciyaareedka soo socda tababare Pep Guardiola ayaa qorsheynaya inuu kooxdiisa ku qanciyo in loo soo iibiyo 5 xidig oo cusub Claudio Koulibaly ayaa bartilmaameedka koobaad ee difaaca dhexe iyadoo ay weheliyaan xidiga Ruben Dias oo u ciyaara Benfica Rabiot Torres oo u ciyaara kooxda Villarreal Nathan Ake Bournemouth iyo Suyunjiga Leicester City oo ay weheliyaan Skriniarka Inter Milan iyo xidiga Zagadou ee Borussia Dortmund kaga ciyaara difaaca dhexe dhammaan xidigahani waxay ka ciyaaraan difaaca dhexe Jack Grealish iyo Saul Niguez ayaa iyaguna ah xidigaha ugu macquulsan ee dhinaca qadka dhexe bartilmaameedka ay ka dhiganayso kooxda Manchester City tababare Guardiola ayaa sidoo kale doonaya inuu soo iibsado ciyaaryahan ka ciyaara lambarka 3 ama difaaca bidix waxaana uu u arkaa Ben Chilwell ka u ciyaara kooxda Leicester City kooxda Real Madrid waxay isu diyaarinaysaa inay iska iibiso xidigeeda Jesus Felecho sida laga soo xigtay AS 23 sano jirkan ayaa amaah ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Wolves bilowgii xilli ciyaareedka hase yeeshee waxa uu ciyaaray oo kaliya 2 kulan horyaalka Premier League kadibna waxaa loo diray kooxda Granada ee dalka Spain Felecho wali waxa uu haystaa 5 sano oo heshiis uu kula joogayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid hase yeeshee Real waxa ay doonaysaa in xidigan uu kooxda ay ku hesho qiimo lacageed oo 8 milyan ah Barcelona waxa ay isu diyaarinaysaa inay mar kale soo dhaweyso xidigeeda daayarka amaahda kaga maqan ee Carlos Alenya ayaa ku laaban doona kooxda Barcelona marka uu dhameysto amaahda uu kula joogo kooxda Villarreal joogitaanka rasmiga ee Camp Nou ayaa shaki la gelinayay 22 jirkan qadka dhexe balse Mundo Deportivo ayaa waxay warinaysaa in haatan la soo dhaweynayo soo laabashada Alenya
kooxda kubadda cagta ee dalka Turkiga ka dhisanaya Fenerbahçe'na waxa ay damacsan tahay inay la soo saxaato ciyaaryahanka Liverpool ee Shaqiri kaasi oo aan ku jirin qorshaha club ee xilciyaareedka soo socda waxaana xidigan reer Switzerland la rajeenaya inuu kooxdaasi u saxiixo qandaraas cusub oo 3 sano ah sida ay sheegtay TV Sport. Shaqiri ayaa u saxiixay Liverpool xagaagii sanadkii 2018 wuxuuna la dhameystay xilciyaareedkii 2018-2019 kaasi oo loo diiwaan geliyay inuu ahaa mid kamid ah xilciyaareediisa ugu fiicnaa ee intiisa uu ciyaaraya xirfadiisa kubadda cagta waxa uu dhaliyay 6 gool isaga oo caawiyay 5 gool oo kale 31 kulan oo Liverpool u ciyaaray hase yeeshee kaalin muuqata kuma lahayn xidigihii bandhiga fiican sanadkan ka sameeyay horyaalka Premier League oo ay Liverpool ku guuleysatay 30 sano kadib ugu dambeynna haddaynu fiirino maadaama kooxda Manchester City loo ogolaaday inay ciyaarto Champions League waxaa jira tartan adag oo kaalimaha saddexaad iyo afraad loogu jiro horyaalka Premier League maadaama labadaasi kaalimood cidda gashaa ay kula biiri doonaan Champions League labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City oo xilli horeba xaqiijiyay kaalintooda Champions League soo socda booskan labada boos ee 3 iyo 4 ee horyaalka Premier League waxaa dagaal adag uu ku dhexmaraya 3 kooxood oo hal dhibic kala sareeya waa Chelsea, Leicester City iyo Manchester United waxaan horyaalka ka haray 3 kulan oo kaliya sidoo kale waxaa tartan adag loogu jiraa tartanka Europa League kooxaha ka qayb galaya iyadoo oo kooxda Arsenal ay 9 dhibcood ka hooseyso kooxda kaalinta afraad ku jirta ee Leicester City waxaa sidoo kale 2 dhibcood ka horeysa kooxda Arsenal Tottenham oo iyaduna kamid ah kooxaha u dagaalamaya inay soo gaaraan kaalimaha hore haddii aysan Champions League ka qayb gali karin ugu yaraan si ay uga qayb galaan tartanka Europa League intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka gorfaynta ciyaaraha ee Som Sports kan mid ka ciidan ku doona waxaan kaga tageynaa nabadeed